ciidamada xasilinta ay ka qayb qaadanaya amniga caasimadda Muqdisho oo loogu baaqay inay laba jibaaraan shaqadooda maalmaha ciida. duqeymo saaxiibada caalamka oo kaashanaya ciidanka xoogga dalka ee ka fuliyeen koonfurta gobolka Mudug oo lagu dilay xubno ka tirsan kooxda Shabaab. xildhibaanada baarlamaanka Kenya oo markaasi dalbaday in baaritaan lagu sameeyo dhulka ay degaan Soomaalida dalkaasi. dowladda federaalka Soomaaliya oo dalbatay in lagu wareejiyo ciidamada bedelaya kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS xilligan ka howlgala gudaha dalka. dibaddana waxaa ugu daroon yahuudda oo sheegtay in markaasi isniintii ay fashiliyeen duqeymo dhinaca Lubnaan kaga yimid kaas oo la damacsanaa koonfurta waddankaasi. talaadada taariikhduna ku beegan tahay 9 Abriil sanadku waa 2024 markana kusoo dhawaada qodobadaasi waliba qaar kale wadajir Shukri Baryare iyo Yaasiin Macalin Cali idinku warami doona. haddii aynu ku bilowno odayaasha dhaqanka ee magaalada Beledweyne ayaa maanta shir jaraa'id qabtay waxaana si faahfaahsan uga hadleen xaaladda guud ee magaalada Beledweyne iyo sidoo kale dhibaatooyinkii labadii maalin iyo sidoo kale labadii habeen ee lasoo dhaafay magaalada Beledweyne ka dhacay. odayaasha ayaa ugu horeyn u tacsiyeeyay maamo xalay lagu dilay xaafadda Buundaweyn ehelkeedana markaasi uga tacsiyeeyay geerida maamadaasi iyaga oo sheegay in ciddii dhac ama dil ka geysata magaalada Beledweyne la mari doono sharciga islaamka waxa uu ka qabo. baaqayna waa baaq nabadgelyo dadku warka si kale u dhigaa ma aha baaqayna waa baaq nabadgelyo waxaan ka baaqaynaa dhibka yaal magaalada Beledweyne dil kale dhaca leh foolxumada leh isdardar kale kaasaan ka baaqaynaa waxaan rabnaa ummadda ku nool magaalada Beledweyne inay nabad gasho ilaahayna waa uga baryaynaa inay nabad gasho wiilka qoriga wata waxaan rabnaa ninaa dhalay jiifow ka soo baxay waa reer Beledweyne annaga waa reer hebel gaara ma lihid waa reer Beledweyne cid kasta inuu wiilkiisa iyo qorigiisa iyo deegaankaas oo ku nool yahay inuu ka warqabo xakameeyaan rabnaa in magaaladu nabad gashaan rabnaa waxaan rabnaa in ummadaas ku nool gobolka Hiiraan qaasaan degmada Beledweyne inay nabad gasho waxaa halkaan fadhiya guddiga samata bixinta beelweynta Xawaadle ilaah baa wax samata bixiya degmada Beledweyne guddigaas wuxuu ka hadlayaa wax ku saabsan islaamnimada iyo wanaagga iyo anshaxa wax ku saabsan oo ka hadlayaa waxaana dhibay oo ugu yar xabadda habeenkii laga ridaa magaalada ee ka nixinaysa umusha ee ka nixinaysa odaga sakaraadka ee ka nixinaysa habarta tacbaanka ee cunuga yar ee dhallaanka ka nixinaysa aaday noo dhibaysa waxaa kaloo na dhibaa in dad masaakiina guryaha loogu galo oo qori aaka ah lagu dhaco igama gaarin meeshaas dhibaatadaasaan rabnaa inaan ka hortagno ninkii aqli qabaana waa u sheegaynaa ninka aqli qabana asaa ikhtiyaar waxaan leenahay oon baaqaas u soo jeedinaynaa wixii xalay dhaca iyo habeen hore waa inayna soo noqon odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan oo ka hadlayay xaaladda aan fadhin ee ka soo cusboonaatay magaalada Beledweyne ay kuwaasi ahaayeen oo si gaar ah sidoo kale uga waramayay shaqaqooyin xalay ka dhacay suuqa Yoobsan ee xaafadda Xawtaake ee magaalada Beledweyne oo ganacsato lagu dhacay halka kuwa kale lagu xabadiyay xilli goobahooda ganacsi ay ku sugnaayeen iyo sidoo kale hooyo Leylo Xuseen oo xalay israasaaseyn rag hubeysan ku dhaxmartay xaafadda Buundaweyn ee Beledweyne ku dhaxmartay ku geeriyootay arrimahaas ay ka hadlayeen odayaashaasi. dhinaca kalena haddii aynu eegno ciidanka xasilinta ee qaybta ka qaadanaya amniga caasimadda ayaa lagula dardaarmay inay xoojiyaan amniga caasimadda iyo deegaanada hoos yimaada maalmaha lagu guda jiro ciidul fidriga. faahfaahinta warkan Cabdi Axmed Xuseen. taliyaha guutada 23aad ee Gungaar oo ah ciidanka xasilinta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Gaashaanle Aadan Jelle ayaa saraakiilka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wuxuu ku kormeeray xarumaha kala duwan ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. taliyaha Aadan Jelle oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay ujeedada uu kormeeray ciidamada isagoona
aada ugu mahadceliyay ciidanka xasilinta ee si weyn amniga muqdisho wax uga bedelay bisha barakeysan ee ramadaan, waxaana uu sheegay in ay ka dhabeeyeen dhaartii ay u dhaarteen shacabka Soomaaliyeed oo ah in ay nabadgelyo ku noolaadaan maadaama dhalinyaro xoogga dalka Soomaaliya ay ka shaqeynayaan nabadgelyada caasimadda. waxaan u dhaaranay difaacidda dalkan, dadkan iyo diintan. dhaartii aan dhaaranay yaanan saacad iyo daqiiqad iyo teem ka mida noloshayna yaana ka been sheegin. waxaan ku dadaalno inaan ka dhabayno dhaartii aan dhaaranay, aan raalli gelino ummadda Soomaaliyeed ee na fiirsanayso, naftayna iyo qofka shakhsi kale naftii yaana raalli gelin. saraakiilay waajibaadka ciidanka waa wax aad u adag markii loo fiiriyo marxaladaha qaarkood. sidaad ka warqabtaan qof kasta ee ciidan ah haddii aan laheeday sargaal sare, mid dhexe, mid hoose iyo dableyda iyo alifleyda intaba waajibaha saaran. sargaal kasta ee shaqo wanaagsan qabto, shaqada uu haayo wuxuu uga dalacayaa haddii ilaahay uu nafta baaqi uga sii dhigo xilku waa xil ka sarreeyo. sababtoo tahay haddii qofku haddii wax fiican qabato ay ku qasban tahay inay mas-uuliyaddii ay haysay mas-uuliyadka sii weyn iyo yacni ay sii aad. runtii qof kasta ee xubinka ciidanka ama xilka hayso hadba siday u dadaasho ayay u soconaysaa. waxaa laga yaabaa in xoogga dalka Soomaaliyeed uu ku jiro sargaal aan xil qaba 6 sano, 5 sano, 7 sano oo mushaarna qaata. saraakiil xoogga dalka lagu dhex baahan yahay. xoogga dalka waajibaad adag ku jira, dagaal ku jira, argaxiso caalami oo dagaal kula jira. laakiin sababta waxaa laga yaabaa inay tahay in mas-uuliyaddiisu ayna gaarin mas-uuliyaddiisa iyo darajada uu leeyahay inayna islahayn. sidaas la'aaligeed sargaal kastee meeshaan ka tirsan ee maanta xil haayo haddii uu mutaysto xilka uu haayo xil ka sarreeyo wada lahaa, darajada uu joogo mid ka sarreyso wada lahaa. taa shaki kuma jiro. qof kastoo ciidan way fahamsan tahay iyo qof kastoo yani cilmi leh ama wax fahamsan way fahmi kartaa. waxaan u dhaaranay difaacidda dalkan, dadkan iyo diintan. dhaartii aan dhaaranay yaanan saacad iyo daqiiqad iyo teem ka mida noloshayna yaana ka been sheegin. dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay duqeymo laga fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Mudug oo la beegsaday dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Cabdiraxmaan Axmed Maaskaro ayaa faahfaahinaya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay howlgal dhanka cirka ah oo lagu dilay ku dhawaad 50 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ka dhacay deegaanka Baraagurguurta ee gobolka Mudug. howlgalkan ayaa waxaa fuliyay diyaaradaha dagaalka ee ciidamada dowladda ka taageera weerarada dhanka cirka ah, waxaana xubnaha weerarkan lagu dilay ka mid ahaa horjooga sare oo magaciisa lagu sheegay Axmed Jiis. horjoogaha iyo xubnaha kale ee weerarkan lagu dilay ayaa lagu tilmaamay inay diyaarinayeen weeraro kooxdu ka geysato, waxaana duqeyntan ay ahayd mid daba socotay weerar gelinkii hore ee shalay ciidamada dowladda ku qaadeen dhul hawd ah oo isku aruursanayeen kooxdu oo ku yaala deegaanka Baraagurguurte. ma jirto wax war ah ka soo baxay dhanka kooxda Al-Shabaab oo ku aadan duqeyntan dowladdu sheegtay inay kooxda kaga dishay ku dhawaad 50 xubnood oo ku jiro horjooga Axmed Jiis. ugu dambeyntiina wararkan ayaa ku soo aadaya iyadoo ciidamada dowladda federaalka oo taageero ka helaya dadka deegaanka iyo kuwa saaxiibada caalamka ay kordhiyeen maalmihii la soo dhaafay howlgallada ay ku fulinayaan meelaha ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab. cabdiraxmaan uu mahadsan yahay oo faahfaahinta warkaas soo jeedinayay. dowladda Soomaaliya waxay dalbatay in lagu soo wareejiyo ciidamadii bedeli lahaa kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS xilligan gudaha Soomaaliya ka howlgala. Saare Gabre. dowladda Soomaaliya ayaa midowga Afrika u gudbisay codsi ay ku dalbanayso ciidamo caalami ah kuwaasi oo muhiim tahay in la helo wixii ka dambeeyay bisha December ee sanadkan. codsigani ayaa la xiriira ciidamo caalami ah oo howlgalka kala wareega ciidamada ATMIS oo qorshe u yahay in howlgaladooda la soo gabagabeeyo bisha December ee sanadkan. ciidamada ATMIS ayaa dhamaadka sanadkani dalka ka baxaya, waxayna dowladda Soomaaliya codsatay in weli ay u baahan tahay ciidamo caalami ah. dowladda ayaa midowga Afrika ka codsatay inay la wareegto howlgalka caalami si loo helo ciidamo bedela ATMIS. howlgalkaasi ayaa bilaabanaya
kowda bisha Janaayo ee sanadka 2025. Ciidamadaasi ayaa la qorsheynayaa in dalka ay ka howlgalaan muddo 1 sano ah sida ay hore u shaaciyeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Afrika ayaa soo saaray qoraal ay ku sheegeen inay kulamo yeesheen 26 bishii Maarso iyo 3 bishii Abriil. Dowladda Soomaaliya ayaa xog ka siiyeen halka uu marayo